السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا سو دوادا كسو دوادا channel keena Somi Fest Ramadan wanaagsan maanta waxaanu ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan forex trading ama tradingka guud ahaan iyo Ramadaanta bisha barakeysan Ramadan wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad like noo saari doontid sidoo kale channel keena kusoo biiri doontid Somi Fest kaasoo aan badanka kaga hadalno inaan ku caawino dhalinyarada Soomaaliyeed ee forex trading iyo tradingka guud ahaan ka shaqeysata kuwaasoo aanu badanka ugala hadalno shirkadaha ay ka heli karaan maalgelinta lacagahaas ay uga samayn karaan waxyaabahaas oo dhan aanu ka caawino aanan lacag ka qaadin markaa soo dhawaada saaxiibayaal commentiga koowaad waxaad naga soo raaci kartaa linkiga telegramka ama channelkeena telegramka kaasoo si maalinle ah aan dadka xirfadooda ama aan ugula wadaagno forex trading ama update-ka suuqa aan ugula wadaagno markaa soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa Ramadaanta iyo tradingka sabirka soomku sidee kaaga dhigi karaa trader anshax leh ama discipline leh ayaynu ka hadli doonaa mowduucaas ayaynu caawa ka sheekeysan doonaa inkastoo mowduucu ku wanaagsanaa inuu live ka soo galno aynu Google Meet aan kusoo galno dhammaan dhalinyarada oo dhan ay su'aalaha iyo wixii ay ra'yi hayaan aynu isku weydaarsan karno insha Allah taasna waan soo wadnaa madashani waxa weeye madasha Somi Fest taasoo traders oo dhan ama Soomaaliya ay wada leeyihiin qof waliba uu ra'yigiisa kusoo darsan karo live-ka aynu soo gali doonaa insha Allah mar walba si dhalinyaradu ay xogaha isu weydaarsadaan dhalinyarada jirta shirkado profimiyo kala duwan ka qaadata akoonna ka haysata sidoo kale qaar shirkadaha qaar lacaga fiican ka sameeyay qaar shirkadaha qaar khibrad ka haysta oo soo ogaaday waxay yihiin marka waxaas oo dhan baynu kula wadaagi doonaa insha Allah Somi Fest maaha meel anaga oo kaliya aan leenahay waa meel dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin manihin anagu akaademiyad dadka magaranaysa si ay ugu biiraan lacag bixiyaan oo ama ay qaataan koorasyo ama mentorship iyo waxyaabo noocaas anaga laakiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed way naga tirsan tahay platform-kana ama madashana waxa weeye meel uu iska dhaxari karo keligii uu wax ku soo gudbin karo marka dhalinyarada oo dhan waan soo dhaweynaa waxaan rajeynayaa in aynu hoos u geli doono barnaamijkeena marka imika waxaan ku jirnaa ama waxa caawa laba inoo noqon doonta bisha barakeysan ee Ramadaan taasoo qof kasta lagu tababaro ay bishu nagu tababarto samirka xakameynta nafta iyo nidaam nololeed badanka Ramadaantu jadwal ayay inoo sameysaa taasoo nidaamkan nololeed aynu badanka aynu ku qaadanaa inta badan waxaynu diiradda saarnaa cibaadada oo kaliya taasna waa muhiim maadaama bishan Ramadaan ay tahay bishii uu Quraanku soo degay bil ay tahay in si weyn looga faa'iideysto bil ka soocan 12 bilood ee kaleba bil magaranaysa ina soo mari doonta sanadkiiba hal mar marka asaasay tahay in cibaadada uga faa'iideysano balse Ramadaantu sidoo kale waa fursad lagu horumarin karo maskaxdeena aynu ku horumarin karno maskaxdeena iyo hab nololeedkeena aynu ku horumarin karno maadaama jadwal gaar ah ay bishan inoo leedahay tradingkuna ama forex trading ama tradingka guud crypto trading ama stock trading waxaas oo dhan waa xirfad si weyn ugu tiirsan sabirka ay ku tiirsan tahay waxay ku tiirsan tahay nidaamka aad dejisatay iyo xakameynta shucuurtaada inaad emotion ahayn ay ku tiirsan tahay sidaas darteed waxaa muhiim ah in aynu fahamno sida casharada Ramadaanta ama Ramadaantu ay nooga caawin karaan inaynu noqono trader anshax leh ama discipline leh ama nidaam leh marka Ramadaanta ina baraysa waxa aynu noqon karno traderka nooca aynu noqon karno kaas ayaynu hoos u sii geli doonaa haddaynu su-aashan isweydiino maxay traders badan u khasaaraan marka traders badan ay khasaaro la kulmaan waxa ay inta badan u maleeyaan dhibaato tahay istaraatiiji la'aan ama aqoon farsamo oo yar way noqon kartaa istaraatiijiyad la'aan ama fundamental analysis la'aan ama technical analysis la'aan waxyaabahaas oo dhan way noqon kartaa laakiin xaqiiqadu badanka waxa ay tahay khasaaraha ugu badan ee ka yimaada ama aynu kala kulano suuqa badana waxa uu ka yimaadaa ama uu ku saleysan yahay shucuurteena inagu waxaan dareemayno degdegeena ayuu ka yimaadaa wuxuu ka yimaadaa cabsideena inaynu khasaarno ama inaynu fursad lumino sidoo kale wuxuu ka yimaadaa damaceena ama hunguri weynaanteena ama greedigeena intaas uu ka yimaadaa waana inta ugu badan istaraatiijiyadaadu way ka xumaan kartaa laakiin shucuurtaadu inta ay ku yeesho kuma yeesho istaraatiijiyad la'aantaadu sababtoo iyo degdeg bay magaranaysa wax walba ay burburinaysaa dad badan waxa ay galaan trades badan iyaga oo aan sugin fursad sax ah
waa degdegii weeyaan taas. ama waxay marketku ay ku noqdaan marka ay khasaaro la kulmaan iyagoo caraysan ay dib ugu laabtaan. taasina waa damac ama cabsi khasaaraha ku yimi ah. taasa iyaduna khasaare kala sii gelisa. tradingku badanka waxa weeye ciyaar maskaxeed ama waa game. tradingku ma aha oo kaliya charts aynu eriyanayno ama aynu eegayno ama analyze garaynayno, balse waa ciyaar maskaxeed u baahan inuu qofku xakameeyo dareenkiisa ama shucuurtiisa. marar badan traderku wuu og yahay sida saxda ah ee la sameeyo, istaraatiijiyadaada iyo nidaamkaad raacaysa iyo shuruudaha u yaalay dhammaantood waad garanaysaa, balse shucuurtiisa ama shucuurtaada ayaa ka hor istaagta ama kaa hor istaagaysa inaad raacdo qorshahaagii. cabsi iyo damac ayaa ma garanaysaa kaa jaminaysa xeerarkii ama shuruudihii ku yaalay. ma garanaysaa taasaa iyadu sababta ugu weyn leh. ramadaantu waa tababar maskaxeed iyadu. ramadaanta ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu inoogu soo dejiyey in ay iyaduna inoo noqoto tababar. waatan cuntadii, cabitaankii, ma garanaysaa baahiyihii kale jinsi, waxaasoo dhan waa taa ma garanaysaa kaa reebaysa. markaa soonku waxa uu qofka baraa inuu xakameeyo rabitaankiisa dabiiciga ah sida gaajada, haraadka, baahidiisa jinsiga ah. inkastoo ay fududahay inuu qofku ma garanaysaa intaasoo dhan uu jebin karo, wax cuni karo ama cabi karo, laakiin dadku waxaa xiraya ma hadda in ma garanaysaa lagu arkayo qolbaad hoosta kasoo xidhan karta laakiin waxaa ku xiraya waxa weeye iimaankaaga, waa disciplinkaaga raacaysid, waqtiga cuntada lagu talagalay, waxyaabaha soon kaa burinaya markii hore xalaasha ahaa, iyo waxyaabaha markay rabadaantu timi maalinkii kaa xaaraanta ah ee soon kaa burinaya. haddana waxa uu dooranayaa qofkaasi inuu sugo waqtiga saxda ah, afurka ma garanaysaa loo jideeyey. taasina waa tababar maskaxeed oo si toos ah loogu baranayo isxakameynta. marka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku baraya isxakameynta, inaad wax walba aad ka soomi kartid, kadibna aad waqtiga sugi kartid. marka shibilin ayay rabadaantu wadataa. haddii aan isbarbardhig ku sameyno rabadaanta iyo tradingka, labaduba waa sugitaan. in aad sugtid afurka iyo inaad sugtid fursadda. markay tradingka la joogo fursaddaad sugaysaa, marka afurka la joogana waxaan oo dhan ee lagaa xakameeyey ama lagaa xaaraantimeeyey siba ay kugu xalaaloobaan waa inaad waqtiga afurka sugtid. waqtiga afurka haddii la gaadho, cabitaankiibaa xalaal ku noqonaya, cunitaankii, baahiyahaagii kale ee jinsiyeed, waxyaabahaasoo dhan baa ku noqonaya. marka sida aad u sugayso waqtiga afurka adigoo og in cuntadu diyaar tahay, haddii cuntada ku taalo kale adigoo og ayaadna waqtiga afurka sugi kartaa, ayaad sugaysaa adiga oo raacaya jidka ilaahay kuu baneeyey. sidoo kale sugitaanka fursaduna waxa weeye waa inaad sidoo kale aad sugtaa fursadda saxda ah ee marketka adigoo shuruudaha ku dabaqaya. ka fursad kasta oo suuqa ka muuqata maaha mid mudan in la qaato. sida cunto kasta oo ku hor taala ama aad guriga ka heli kartid aanay ahayn mid la cuno marka aad sooman tahay. yani labadaba waa xakameyn baa ku jirta iyo sugitaan. marka inkastaanay rabadaanka aanu tradingku aanu gaari karayn oo rabadaanku ay tahay wax ma garanaysaa ilaahay uga adoonsaday, cibaado ay tahay, laakiin fursadda suuqa haddii aad sugi weydid dee lacag yarun baad khasaari doontaa, laakiin dee islaamnimadaadii iyo ma garanaysaa ma khasaari doontid. laakiin rabadaanka waxaad khasaari doontaa, maalinkaas waa lagugu leeyahay, si camdi aad u jabisay, waxyaaba badan ba ka rabtibmi doona, laakiin haddana way soo shabahayaan. sabirka iyo doorkiisa tradingka ama forex tradingka. sabirka waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee traderku u baahan yahay. qofka traderka markaad suuqa soo gelaysid intaad soo baahantay sabir u baahantay. suuqa mar walba wuu jiri doonaa, suuqan wuu jiray intaasoo sano hore, intaasoo dambana wuu jiri doonaa, fursaduhuna way soo noqnoqon doonaan. oo maanta haddaad fursad aad misgaraysid iyadii mid lamid habaa iman doonta oo shuruudaheedii wadata oo faa'iido kuu samayn karta. traderka guuleystaa waa kan awooda in uu sugo ilaa uu helo setup sax ah oo shuruudihiisii dhammaantii la jaan qaadaya iyo qorshihiisa oo dhan la jaan qaadaya. kaasaa traderka saxda ah ama guuleysta ah. marka tradingka guud ahaan waa sabir. xakameynta nafta rabadaantu waxa ay ku baraysaa in aad iska celiso rabitaanka degdega ah ee cuntada iyo cabitaanka iyo baahiyaha kale ee jinsiga ah. tradingkuna ama forex trading ha noqdo ama crypto trading ha noqdo ama wax kastoo trading ha noqdo,
isagu wuxuu kaa rabaa in aad iska celiso rabitaanka degdega ah ee profitka faa'iido degdega inaad raadaysid in aad si cadho leh aad ugu noqotid suuqa marka aad khasaartid aad istaadid suuqa ka argooso waxyaabahaasoo dhan buu qofka traderka guuleysta ah ay ka celisaa naftiisu. discipline ayay rabadaantu leedahay ama anshax qofku uu raaco oo waqti magaranaysa waqtiyada u kala qaadaysa haddii aad awooddo inaad xakamayso gaajada iyo haraadka iyo baahiyaha kale maalinlaha oo dhan waxaa sidoo kale awood u yeelan kartaa inaad xakamayso damaca faa'iido doonka degdega ah iyo cabsida khasaaraha ama suuqa inaad revenge aad ku samayso ku laabatid ama inaad khasaaraha ka baqdo. dad badan baa khasaaraha ka cabsada oo iyagoo shuruuduhu dhammaystiran yihiin dhammaantood haddana ka baqa marka taasna waad xakamayn karaysaa. khaladaadka ugu badan ee ramadaanta ay dhalinyaradu sameeyaan ama tradersku sameeyaan badanka ramadaantu waxay wadataa daal ama gaajo laakiin hurdo yari ayay khaladaadka ay sameeyaanba ka mid ah dhalinyarada traderska ah. marka inta lagu jiro ramadaanta traders badan waxay sameeyaan khaladaad sababo la xiriira daal iyo gaajo iyo hurdo yari. marka daalku wuxuu kugu sababayaa inaad go-aano khaldan aad qaadatid gaajadu waxay kugu sababaysaa inay maskaxdu ay go-aan qaadasho ay ku adkaato hurdo yariduna inaad awoodda analyska aad weydid oo suuqa aanad fursadba aad qaadan karin wixii sax iyo wixii khalad ah. revenge trading iyo off trading revenge trading waxa weeye marka traderku uu khasaaro la kulmo oo caadi ah oo tuuqan khasaaro lagala kulmi karo waxaa laga yaabaa inuu si cadho lah uu marketka ugu noqdo ama suuqa ugu laabto si uu soo celiyo lacagtiisii. taanina waa mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ee qofka traderka uu ku dhici karo sababtoo ah khasaaraha ayaa sii kordha badanka marka si degdeg ah istaadid suuqa faa'iidadii khasaarihii lacagtii uu kaala laabtay kala soo cesho waxaa laga yaabaa khasaare intaa leegaad haddaad 1% aad khasaartay oo kale dad suuqa ku laabatay 1% kale aad khasaari kartaa si degdeg ah aad ugu laabatid. laakiin off tradingku waxa weeye sabir la-aan ayuu soo ka yimaadaa oo qofkiiba waxa traderka ahba wuxuu rabaa inuu traders badan galo oo aan qorshaysnayn mid walba meeshu kaga soo dhaca buu ku dhufanayaa. fursad kastaana maaha badanka ogo fursad kastaana maaha mid saxa sugitaankuna waxa weeye xirfad muhiim ah oo qofka traderka ay tahay in uu yeesho. badanka go-aan qaadashada iyo rabadaantu magaranaysa casharka ayna barayso go-aan qaadashada gaajo iyo daal waxa ay si toos ah u saameeyaan awoodda qofku uu leeyahay inuu qaato go-aan sax ah saameyn bay kugu yeelan doontaa. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad fahanto waqtiga ugu habboon ee la trade garayn karo ama aad trade garayn kartid. marka waa jadwalka waa inaad samaysatid waqtigii hore waa inaad wax ka bedeshid maadaama aad sooman tahay haraad iyo gaajo iyo daal aad dareemi kartid taasina ay saameyn ku yeelan karto awoodda maskaxdaada iyo analyskaaga. waa inaad ama subax hore qaadan kartid ama habeenkii qaadan kartid ama waqtiyo kala duwan. tradingku badanka waa sabir marka tradingka guusha leh waxa uu ku dhisan yahay sugitaan inaad suuqii sugtid xaqiijin inaad ku laalaabatid in setupkaagu saxan yahay iyo raacitaanka qorshe hore aad lahayd qorshayaashaadii hore oo maanta maxaa suuqa ka rabaa xagee waan kaga baxaya waxyaabahaas oo dhan waa inaad ku diyaarsan yihiin. marka casharka ramadaanta in ka baran karno ramadaanta waa fursad lagu horumarin karo nidaamka nololeed nidaamkaad u nooshahay waqtigaad kacays waqtigaad cibaadaysanaysid soonka xilligaad suxuranaysid xilligaad furi doontid nafta inaad ka ilaalisid wax kasta oo magaranaysa soonka wax u geysanaya ama ha buriyo ama ajarkiiba hoos oo dhigo kuwaas si toos ah uga qayb qaata guusha tradingka. marka haddii aad intaas ku dabaqdid ramadaantaada intaas aad si dhab aad u qaadatid intaas un baad ku dabaqi doontaa tradingkaaga kaas saad ku guuleysan doontaa. marka ramadaantu waa fursad lagu horumarin karo nidaamka nololeed iyo xakameynteena nafteena kuwaas si toos ah uga qayb qaata guusha tradingka. marka ramadaanta nidaamkaad soo baratay waxaad ku dabaqi doontaa tradingkaaga kaasoo si guul ah tradingkaaga u gaari kara. markaas intaas ayaan kusoo koobi doonaa saaxiibayaal waxaan rajaynayaa in aad nagu soo biiri doontid. madashani waa madashaadii Somifest waa madal dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan dhex u ah maaha madal qof gaari uu si gaar u leeyahay. insha Allah waxaan bilaabi doonaa 10 live ah kuwaasoo qof waliba uu ra'yigiisa aan halka microphone-ka u furi doono qof waliba uu wixii uu suuqa marketka uu kala kulmay wixii uu barafim kala kulmay wixii broker kala kulmay magaranaysa brokeradu si u kala wanaagsan yihiin suuqa khibradda uu leeyahay istiraatiijiyada uu shaqeeyay
waxaasoo dhan baan rabnaa in ay dhalinyaradu dhammaantood halkan isku weydaarsadaan. Ka soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkana like noo saasuu meel fog gaadho. Telegramkeena linkigiisa saxdahayna waxa uu yaalaa commentiga koowaad, halkaasaad naga soo join garayn doontaa. suuqa update-ka maalinlaha ah halkaasaan ku wadaagnaa. asxaabtaadana usii sheer garee. waa maxamed hadliye oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.